khilaaf weyn ayaa ka dhex qarxay oo saameyn ku yeelan kara amniga guud ee qaranka. waxaa la isku hayaa arrimo siyaasadeed oo quseeya labada xafiis. waa ra'iisul wasaare Roble iyo taliyaha ku-meel gaarka ah ee Nisa Yaasiin Farey oo ay markan ka dhex tafatay. maxaa la isku hayaa? maxaase la isku eedeynayaa? maxay tahay si qorshaha iyo ujeedka Roble? warbixinteenan halbeegga wararka ayaan saaxiibayaal ku falanqayn doonaa. waxa dhaliyay khilaafka u dhaxeeya taliyaha ku-meel gaarka ah ee Nisa iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda. balse marka hore sii sheergareeya muuqaalkan oo like Nasara nagu soo biiro followde page-keena Facebook ee halbeegga wararka. sidoo kale subscribe inoo saar YouTube-keena halbeegga si aad ula socoto wararka iyo muuqaalada halkan aynu ku baahino. waa hagaag aynu ku hormarne Roble iyo Yaasiin Farey ayaa khilaafkii ugu cuslaa abid uu markan ka dhex qarxay. sida xogta ay tilmaamayso, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa ka carooday tallaabo uu qaaday kusimaha agaasimaha hay'adda Nisa Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey, taasoo keentay in Roble uu kulan ugu yeero xildhibaan Yaasiin Farey. sida uu ogaaday halbeegga wararka, ra'iisul wasaare Roble ayaa ka carooday xilka qaadis uu Yaasiin Farey ku sameeyey taliyaha hoggaanka baarista ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Korneel Xamdi Xasan Maxamuud oo juf ahaan ay isxigaan ra'iisul wasaaraha. kulanka oo la sheegay inuu dhacay habeen hore ayaa ra'iisul wasaaraha uu kala hadlay Yaasiin Farey sababta xilka qaadista dhalisay. hase ahaatee waxaa lagu soo warramayaa in kulankaas la isku fahmi waayey, labada dhinacna khilaafkoodu uu sii weynaaday laguna kala kacay kulankii ugu horreeyey. saacado kadib qoraal ay saartay Korneel Xamdi waxay ku caddaysay in shaqada ugu tagtay kusimaha Nisa Yaasiin Farey oo ay ku eedeysay inuusan ku dhaqmin sharciga dalka u yaala, isla markaana aysan jirin cid looga dacwoodo. taasi beddelkeedana ay sheegtay in xilligan ay tahay markhaatiga nool. Korneel Xamdi ayaa sababta xilka qaadisteeda soo dejisay loo aaneynayaa inay xiriir dhow la leedahay ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaan Jacfar oo ilaa hadda ah guddoomiyaha degmada Dayniile, isla markaana ay ka mid tahay ama ay tahayba mid ka mid ah xaasaska u dhaxda Jacfar. Yaasiin Farey ayaa xilka taliyaha Nisa ku jooga heshiis dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo lagu xaliyey khilaafkii ka dhex taagnaa labada oday. heshiiskaas oo dhigayay in uu Yaasiin Farey sii hayo xilka ilaa iyo inta laga soo magacaabayo taliyaha ay labada ninba ku wada qanacsan yihiin, taas oo ilaa iyo haddana aysan dhicin. si kastaba, dhowr bil kadib heshiiskaas weli Farmaajo soo magacaabin ciddii bedeli lahayd Yaasiin Farey, mana muuqato inuu sidaas damacsan yahay maadaama Yaasiin uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida aadka ah ugu dhow xafiiska madaxweyne Farmaajo. hase yeeshee hadda gorodda ayay isla galeen Roble iyo Yaasiin Farey, xaalkooduna wuxuu u muuqdaa allo sahal haddii aan xal loo helin hay'adda Nisa oo uu Roble doonayay markan in weerar qabaa'ilaysan uu ku qaado, isagoo si weyn uga andacoonaya gabadha ay isku dharka yihiin ee xilka laga qaaday iyo sababaha keenaysa. balse Yaasiin Farey oo si weyn loogu xanto inuu ka mid yahay dadka aadka ugu dhow Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa qaadaya tallaabooyin u muuqda in lagu raaligelinayo taliyihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin oo xilka hay'addaasi laga qaaday. hase yeeshee Xamdi ayaa iyadu qudheedu caddeysay in shaqada ay uga tagtay sabab la xiriirta taliyaha ku-meel gaarka ah ee Nisa oo ay iskhilaafeen. xafiiska Roble waxay wada dhaqaaqyo kale oo ku aadan sida looga hortagayo damaca guracan ee Yaasiin Farey iyo tallaabooyinka taliska uu ka qaadayo. dhanka Yaasiin Fareyna waxa uu wada is-horisaag ugu sameynayo damaca iyo qorshaha Roble. dhan kale difaac ayuu ugu jiraa, waa la isgaadgaadayaa. xilli kastana way isku bilaabi karaan labada oday siyaasadahooda qabow ee u muuqda in dhan kaleeto uu guul raadinayo. daawada fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta hoose ee commentiska. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.